isma lahaynoo Tottenham baa kugu garaacay masraxii riyada. ugu dambeyn wuxuu noqday la galay laga baxay saddexda dhibcood laga qaatay. habeen shadaadintii haragooda lagu tukaday maryahana laga calaashaday xataa 10 xidig ay ku dhamaysteen. hogaamiyihoodiina gelin hore ayuu muquurtay oo cawska cagaaran maca salaameeyay iyadoon looga baahnayn inuu taasi yeelo. meesha mubari basaatimba istiidkuse waa ka xaaraan. Tottenham way taqaanaa shadaadinta tan iyo shiikhu markuu soo galay Itixaad iyo hareeraheeda sidii shaydaanku uga guuray Old Trafford in dhagaha laga jari karo. sidaasi oo ay tahay Ten Hag bilaatima mar kale waa lagu tuntay. Tottenham guul weyn ayay ka gaadhay Man United kulankan oo ahaa mid muhiim ah kana tirsanaa horyaalka Premier League. kulankan ayay Man United ku dhamaysatay 10 xidig qaybta dambe ee ciyaarta. Tottenham ayaa daqiiqadii saddexaad dhalisay goolka koowaad waxaana u dhaliyay xidiga Bernard Johnson kaasoo hogaanka u dhiibay kooxdiisa. sidaas markay tahay qalcadaada aad joogto isla daqiiqada horeysana lagugu shubo maxay ka dhigan tahay waad soo lugooday iska noqo. Tottenham ayaa wax walba kaga fiicnayd shadaadinta kuwaasoo ku dhibtooday inay weerar qaadaan. isdeeq le Messi tondisinfuwa maxaa yeelay waa shaqada keliya ee loo jooga cawska cagaaran. Man United ayaa daqiiqadii 42aad halkii laga doonayay inay halgan gasho maadaama ay qalcadeeda joogto boqolaal ka mid ah taageerayaasheeduna ay sara joogsadeen inay kursiga dib u fadhiisiso si ay niyad samaan u dareemaan balse waxaasi may dhicin. kaadhka cas ayaa looga saaray Bruno Fernandes kaasoo ciyaarta kooxdiisa kaga tegay 10 xidig oo bilaamiciina. waa maalin xataa indhayarihii footariyada wax ku eegi jiray uu ka maqnaa kooxda Spurs oo la oran karo maanta waa loo daadan karay balse dhan kastaba waxay ahayd midda shidan midda keliya ee xalaashu u ahayd inay tahay inay guusha kala baxdo goobta. qaybta dambe ayay Tottenham mar kale imaan la'aanteedu bilaabatay iyadoo doonayay inay mar kale ka nacsadaan kooxda shadaadinta si aan shaydaanku madaxa u qaadin. la iskuma raagin daqiiqadii 47aad ayay dhalisay Tottenham goolka labaad waxaana u dhaliyay xidiga Kulusevski. la soco Kulusevski ayaa dhaliyay 2-0 ka dhigay. Man United ayaa isku dayday inay samayso fursado laakiin waxay ku dhibtoonaysay inay dhaafto difaaca Tottenham oo ahaa albaabo la xidhay. daqiiqadii 77aad 7-7 Tottenham ayaa dhalisay goolka rajada iyo maxaan oran karaa rajada quusta amba bixinta iyo Ten Hag inuu kursigiisa dib ugu laabto. ciyaartuna way dishay sida ayaa lagu axmay Dominic Solanke oo saddexdii ciyaarood ee hore horyaalka bilowgiisa aan wax gool dhalin ayay u noqonaysaa kulankii saddexaad uu gool dhaliyo. Tottenham ayaa marar badan ku dhawaatay inay dhaliso goolal kale laakiin waxa habeenkani ay ahayd habeenkiisa oo Nano sameeyay badbaadina cajiib ah taariikh xun oo madowna ka badbaadiyay. waxaa mar kale la xasuusan gaadhay habeenadii Mourinho isagoo cadhaysan uu ku soo noqday qalcadan 6 ka kiciyay shadaadinta. haddaba kulankan si gaar ah isu dul taagno waxyaabihii sida gaarka looga diiwaan geliyay. qaybta hore oo keliya fashilku halkuu ka muuqdo waa tan 3 shuud oo keliya ayay samaysay Man United 2 ayay ku aadisay balse iyagu waxay martigeliyeen 12 shuud 4na waa lagu aadiyay goolkooda. kubadaysashadoodu waa 7% halka 360 ay raaxaysanaysay kooxda Tottenham. keliya 189 baas oo Nana kow ka yahay ayay samaysay kooxda Man United 146 baas ayayna dhamaystirtay halka Tottenham 323 baas ay samaysay 286 halkii loogu talagalay ay ku taarget garaysnaayeen. United waxay ahayd mid cawska goglan sababtoo maxaa yeelay taakalada ayaa ku tusay qaybta hore oo keliya 13 taakal oo dhul jiif ah ayay sameeyeen oo midi Bruno ku caraabay halka Tottenham ay ka samaysay 2. faawaladu waa 11 ay Man United gashay hadda qaybta hore oo keliya iyo 6 ay kooxda Tottenham gashay. wax koona ama helin shadaadinta gurigooda joogay oo ay waliba barbar joogeen taageerayaasheedii. 2 koone ayay heshay qaybta hore kooxda Tottenham. isku guud marka kulanka oo dhan 90 daqiiqo markaad isdul taagto waxa ay samaysay isku day iyo waxa laga filanayay iyo sida xaal noqday waa 11 shuud. kooxda Man United labadii qaybta hore oo keliya ayuun bay ahayn waxay ku aadisay balse Tottenham guud ahaan kulanka waxay samaysay 24 shuud 10 ayayna ku aadisay 3 ka midina shof waa loo diiwaan geliyay. 39 kubadaysashada United halka 61 waxba halka iskama bedelin guud ahaan. 377 baas oo Nana mar kale lagu daray ayay samaysay kooxda shadaadintu 295 ayaa halkii loogu talagalay oo qaybta garoonkooda
dee lagu dhammaystiray, halka 621 baas ay samaysay kooxda Tottenham 90 daqiiqo. 548 ayaa ahaa kuwa halkii loogu talagalay ku diiradaysan. taakaladu mar kale qaybta labaad Man United waxay mid cawska cagaaran galgalanaysay bustaheeduna yaalay waa 26, halka 6 oo keliya ay Tottenham ka tahay. faawaladu waa 16 iyo 14, koonayaashu waa 5 ay United heshay iyo 3 ay kooxda Tottenham heshay, balse kama aysan faa'iideysan. shadaadintu haragoodana waa lagu tukaday iyagoo qalcadooda jooga. Bruno Fernandes hibmaabka direction of play-ga kulanka markaad caadi u eegto waa kan. mariya jiidashadu xalaal ayay wahayd isaga, balse garoonka inay mamnuuc ka tahay maankiisa wuu ka saaray. inuu hogaamiyey shadaadinta yahayna waa uu iska ilaawi kani. Delight oo si gaara ay isna u haysay diiraddu waa kan dhaqdhaqaaqa direction of play-ga kulanka 90 daqiiqo waxa uu ka sameeyey. waxaad moodaa inuu kubadda taniska ciyaarayay oo shaqadii loo diray aanu qabanin. waxyaabaa lagu kala badiyey si gaara markaynu u eegno Manuel Ugarte iyo James Maddison. waa la ishelay waana la kala mudnaa. Dominic Solanke iyo Delight ninkii garan ayuunbaa garan, goosana yaqaan, 3 dhibcood shabagana geli kara. Serkese iyo Romero looma tilmaami karo googooyaha reer Argentina, shaqadiisii waa u gutay kulanka. haddaba Bruno aan si gaara isu dul taagno casaanka niyad jabka ahaa. 242 ciyaarood kadib Bruno Fernandes ayaa la siiyay casaankii ugu horeeyay ee xirfadiisa Man United kadib markii uu si taxadar la'aan u taabtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee James Maddison. Fernandes waxa uu casaanka ku qaatay kadib markii uu la tartamay oo si weyn ula tartamay xidiga Maddison. kabtanka United ayaana u muuqday mid si biriirxaday markii uu kubadda sii socday, laakiin kadib si aan loo baahnayn ayuu u laaday xidigan, taasoo keentay inaan garsoorku hareeraha dayin afkana ka geliyo kaadhkiisa uu kaga baxayo garoonka. murugada Man United halkaasi kuma yeekaan bixitaanka xidiga Bruno Fernandes, waxa isaguna daqiiqado kadib dhaawacmay Kobe Mainoo. hibowlihii maalmaha adag lagu baxsan jiray, tuumbooyinkana dhexda ka laadi jiray, isna waa galbaday. dhexduna albaabo ballaqan ayay ahayd oo handaraabyada cid qaadatay aan la garanayn. Mason Mount ayaana la keenay markaa kadib. waxba se ismay bedelin oo dhagahunbaa laga sii jaray shadaadiinta. haragoodana waa lagu tukaday, maryahana waa laga calaashaday. waxaana kulanka herkiisa waa Asperes Strig Early gelin hore ayay toogashadeedii u horeysay samaysay, kadibna ugu shubtay wadnaha jirtay shadaadiintii la waayey. Isbeek Lemese Jasper de Lemesifinwa maxaa yeelay la kala guran og, la kala goosan og. Tadejus Tottenham Falatazione yaa Tottenham waad samayseen wixii aad garanayseen, wixii aad u timaadeen. Tottenham ugu dambeyn liiskii tirada dheeraa ee shadaadiinta way iska jarjaraysaa ee ahaa in qalcaddan marka ay timaado ay ahaato koox ku dhiban. weliya haddase Man United 24 jeer ayay badisay. Tottenhamse sanadihii dambe calanka ayaa u saaran, ilaa rikoorkii 6 ahaa meesha uguba yaalle. kuwani haddii xataa wax kasta loo sameeyey, ku bilaatimaan la keenay, qaar madax cad la keenay, qaar food madow la keenay, hagaagi maayaan. waa shadaadiinta. tan iyo shiikhu maalintu ka bixi doono Itixaad inta ka horeysa kuwani ma hagaagaya. seerku iska ogaa maalintii shiikhaasi soo galay magaalada Manchester ayuu waa ka fadhiisanaya, waxbuu ogaa inay soo socdaan. dee shiikhu cawdu billaahi min ashaydaani rajiim buu yidhi, shadaadiintiiba waa duush. lama arag koob iska daaye, tartamadii laguma arko. fikta sare hadalkeeda warma waxay ka liitaan Brighton iyo Aston Villa iyo Newcastle iyo malaayiin dollar way ku baxeen. bal Aston Villadan muxuu ahaa Newcastle shan gebigeedaba ninka yar Sacuudiyaanka ee saamiga yar ka helay eelkan saliidee la sarifay. dee halkay ka joogto iyo meeqaamkay leedahay weynu ogna. City bay cunaa haysaa sanadkii dhawaana dee championkay joogtay. bal shadaadiinta sooj waanu ugu guula badan. waar waxaasi waxba ma reer buuqsiraate haragiina lagu tukaday, maryahana waa laydinka calaashaday. balse taageerayaasha qaarkood durtaba qoraaladay soo dhigeen. mid ka mid wuxuu ku leeyahay haddaan moodayay in sidan xaalku ahaanayo maba soo xidhayn funaanadan kooxda Manchester. markaan garoonka imaadana dee waxaan iska sheegan lahaa koox kale. qaar kale iyagoo jooga ayay funaanadahooda bedesheen, qaar kale faraha la isugu fiiqfiiqay oo gelin horeba waxay qaar Tottenham aanu ahay oo meeshan waa ku soo khaldanay kursigan aanu fadhino. war dee wax la sheegso maaha. yaa waa ceebu saaxib. maxaa la oran jiray saaxibul ceeb miyaa ahayd qoladii muxuu ahaa dee madareemayaashii madiirayaashii maxay ahaayeen madamqadayaashii dee kuwii nooca ahaa iska soo fadhiyi jireen. yaa saamaxnaantu iminka United bay wehel u tahay. Ten Hag tabaabushiisa bixitaanka inuu taraafilan ahaado waxba ha raagsan waa haddii damiir ka jiro shadaadiinta gudaheeda.
xubintii waa kariskiiyo kala haadintii maalintii maalmaha ka tilmaanayd ee axadda shadaadiinta waa la karsaday innaguna waynu ku tumannay xubintan midda xigta intaynu ku kulmi doonno waa tirikoodii leh tan iyo isarag maqalkeena dambe iyo nooli kulantoo dambe oo xiisa leh waa sidaa iyo ammaana allah waxbaa dhece Smart Dental Clinic. Smart Dental Clinical xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxaa ka mid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo keliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo